Salaamullaahi calaykum asxaabteyda waan idin salaamay. Salaan kadib waynu kala baadiyownay. Maanta waan isku soo laabanay alxamdulillaah mashquulada kadib. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkayga uga hadlo waxyar. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku lafakuro hadduu Ilaahay yiraahdo aqoonta maanta 2021 ee Soomaalida iyo aqoontii 1960 ya 1960 aqoontii taale iyo aqoonta maanta taale ee Soomaalida inaan waxyar taataabto bal ma garate anoo saas aqoon saas asii lahayn laakiin haddana intuu Ilaahay iga waafajiyo yaa waxaan rabaa inaan ka dhaho waxne aqoontii hore iyo wax aqoonta maanta dambe ee 2021. Aqoonta markii aanu ka hadalno aqoontu way fara badan tahay in maxay ahayd aqoontu ay xad lahayn waxa ku cadeynaysaa aysan dhammaanaynin dee inta aad nooshahay wax cusub baad baranaysaa. The day you was born and the day you will die wax baad baranaysaa ilaa aad ka dhimanayso. Haddaad maxay ahayd boqol jirto wax cusub la arkaysaa. So marka mowduucina aan usoo laabano mowduucina oo ahaa aqoontii hore ee Soomaalida iyo aqoonta maanta ee 2021. aqoontii hore waxay ahayd aqoon ku dhisan xirfad caqli yay ahayd, laakiin maanta xirfadda maanta aqoonta maanta waa aqoon ku dhisan bas wax la hayo theory bas ay ku dhisan tahay. So aqoon maanta practical ma jirto, maanta way yar tahay. Inta badan anugii wuxuu ku qaadanayaa wax walba theory. Maanta haddii la maanta anuga base maxaa waaye maxay ahayd salty maxaa waaye atmosphere maxaa waaye practical ahaan inuu arkin baa laga yaabaa maanta ma garate. Marka elementska haddii qofkan loo tuso by practical qofku aqoontiisu way ziyaadaysaa, laakiin haddii by theory loo tuso ma garanayo ma garate. Phosphor hadda wax Soomaali oo yaqaano phosphor way yaqaanaan, laakiin haddana way yar tahay elementkaas ma garate. Chemical reactionada haddii la dhacayo qof practical u sameynayo way yar tahay. aqoontii hore marka u laabano aqoontii hore waxay ahayd aqoon ku dhisan practical iyo theory iyo caqli iyo weliba Soomaali nadiif ay ahayd. waxaana ku cadeyn kartaa in af cusub la alifaa wax sahlan ma ahan ma garate. in af Soomaali la qoro wax sahlan ma ahan. in af luqadi ama af community ama af bulsho ay leedahay wax la qoraa wax sahlan ma ahan. bal qiyaas maanta caqliga hadda adiga kugu jiro luqad cusub ma kusoo beri kartaa adduunka? waa maya. luqad cusub ma kusoo beri kartaa? alfabeetka cusub ma qori kartaa? waa maya, ma qori kartid. marka dadkii hore inay dad ahaayeen oo aqoonta ay ka muuqatay waxaa ku cadeynayso qofka well educated oo la dhahay waxbuu bartay aleelahay qofkaasi gadaasha kama taagna wax la dhahayo qabiil. hadduu wax bartay bulshada dhan buu u dhexeeyaa. maanta waxaan is leeyahay 2021 maxay ahayd educationka keliya ama maxay ahayd meesha keliya ee qabiil ay ka jirin waa marka waxbarashada la gaaro. macallinku marnaba ma noqdo qabiil. hadda maanta waxa aan dhihi karo waxbaa ka xare oo qabiil aan ku jirin waa macallin ama education systemka. markaa fiiriso xoogow
laakiin marmo way tahay horta inay lug kula jirto qabiil, laakiin haddana qabiilkaas kuma jirto, ma garatay. laakiin wax walba oo na soo haray waxaa sameeyey wax la dhahayo qabiil. haddii maanta ninka PhD-ga yaa haysto hadduu qabiil gadaal ka taagan yahay, what's the point of marka educationka marka uu bartay maxay tahay marka ishay marka aqoontu waa inay adigu bedeshaa ee ma ahan hay'aday in yani aqoonta adiga aad bedesho ma ahan, waa inay adigu ku bedeshaa. maxay ku bedelaysaa dhinaca yani maxay ahayd positive-ka, dhinaca wanaagsan. حتى ما أنت واحد أدون لعق يا ربنا هدي له وشيء ما هنا أقول تذكر يبسطه ثم على ذي هراء قفك حدوث ديدات جارو وحو نقول جري براء أما معلن صوت قانن محو ذاك بري جري انتو برتي أيو سي بري جري انتو برتي أيو سي بري جري حتى لما أنت كانت ديدات كواس ولو فرح برضو kuwaas oo weli firiix ku bartay ma karta ayagoo firiix ku baranaya handala dadkan tale firiix ku soo bari jireen aqoonta. hadda wax lama hayo annagoo lacag ku baranay oo lacag laga qaatay bil walba ya handala awood uma lihin inaan handala dadka naga hoose aan wax barno. maxay ku dhacday ishag ila ummadda waa kuwa iscaawiya, kuwa naga hoose markaan wax barno yaan anayna kor aadi karnaa. ma garad dee maanta macallinkii asagoo PhD haysto yaa waxaa laga yaabaa inuusan kuwa xataa baaj qaadan xitaa inuusan wax bari karin. waka uu ku leeyahay haddaan bara maxaan ka faa'iidayaa, waa qabiil hee noocaas ma garad. dee marka aqoontu 2021 maanta waxaan dhihi karaa waxaa ka fiican waxa la dhahayo xirfadda ama skills yaa dhaanta maanta. kolba ani ahaan intii maxay ahaydey aqoonyahan qabiil aan noqon lahaa waxa ii wanaagsan inaan noqdo xirfadle caadi ah inaan noqdo, because of xirfaddu ma gelayso wax la dhahayo qabiil. laakiin maanta aqoontu ama educationka wuxuu galay wax la dhahayo maxay ahaydey qabiil, because of qofkii waxaad arkaysaa well educated oo PhD haysto waxaan daliil leeyahay wuxuu u tartamayaa maxay ahaydey wuxuu ka soo jeedaa qabiil hebel booskooda inuu qabto rabaa. ma la dhahayo aqoontii yaa leeyahay, ma la dhahayo aqoontii wuu leeyahay, lama dhahayo. waxaa leeyahay maanta ilaa idmis laag tis footada camal ma karata taaka bitaako camal maanta maalintayni shalaa qaadateen anna maanta qaadanayna ma garad. marka waxaa laga yaabaa marka in meeshaas si dad aan aqoon u lahayn la keeno, kadibna dee xitaa hadda waxaan maqlayay muuqaal waxa daawanaya xitaa qaar mas-uuliyiin oo xitaa yani sida xitaa keyboardka loo hagaajiyo yani aan garanaynin ma garad. capital letterska xitaa maxay ahaydey sida loo bedelo xataa keyboardka aan garanaynin ma garad. dee saas hata wuxuu ku yihiin mas-uuliyiin. dee marka aqoonta marka maxaan dhihi karnaa marka 2021 aqoonta maxaan dhihi karnaa aqoontii 2021 waxaa ka fiican skillska. dhalinta waxaan kula talin lahaa haddii aad hubto inaad aqoonyahan noqonayso, haddaba waxaa ka fiican inaad ahaato xirfadle yani community ama xirfadle bulsho ama xirfadle cid walba jeceshahay ma garad. xirfadaada cid kugu nacaysa ma lahan, cid walba way ku jeclaanaysaa. maanta hadday kabkaa go-do ma dhehaysid tumbaalkan kabka ma tolan ma dhehaysid, oo ku khasbadana ku tolot lacag walba hayso oo ku khasbadana ku tolot faahiin oo ku khasbadana ku tolot wakaasaa. dee marka xirfadda waxaan jeclaan lahaa hadda aqoontii waxay noqotay nooc kale ma isku halayn karo. idinka oo aqoontiina wato hantale xirfad ku darsada, taas aan ku hortaan lahaa. dee dadka kalena Soomaalideenana ama dadkeena waxaa kula talin lahaa dadka aqoonta leh oo waxaan khibradda u leh
waa in dadka laga sharfaa, laga soo dhaweystaa. Qofkii wax ku dhaamo wax ka baro, qofkii ka hooseeyana soo caawi. Ma garad si Soomaalidii hore ay ku liibaaneen awoowayaasheen heer iskama gaarin. Ma garad rafaad badan bay ka mareen, way silceen, way rafaadeen. Ma garad laakiin annaga maanta wax barayno, annaga maanta isku aqoon-yahan qof Soomaali wax ku baraayo, afkaaga hooyo wax lagu baraaya, wax lagu sharxayaa. Ma garad marka waa inaa marka na bedelsaa, waa inay aqoontu na bedeshaa. Ma ahan inay annaga aqoonta aan bedelna, ma ahan. Aqoontu waa inay ku bedeshaa. saas ayaan idinkula dardaarmayaa dadkaygu. Muuqaalkan waxaan rabaa inaad sii share gareysaan, asxaabta ay la wadaagto, waanadaane inaad qaadataan. وتعيها أذن واعية. مقرد مركه سلاما من كل آفة.